gudoomiyaha Beledul Amiin gudoomiyaha Sabiid iyo gudoomiyaha maaragtay Mareere dhammaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka Jaziira haweenka iyo dhalinyarada culamaa u diinka iyo ardayda yaryar ee maanta na soo dhaweeyay dhammaantood ciidamada amniga qalabka sida ee runtii ciidamada amniga ee deegaankan ku sugan hadday yihiin booliis hadday yihiin military hadday yihiin kuwa isxil saaray bahda saxaafadda dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan farxaday noo tahay maanta inaan soo booqano deegaanka Jaziira waxaan rabnaa inaan kaga mahad celino soo dhaweynta qiimaha leh ee aad noo samayseen adinka iyo maamulkiina ee ugu horeeyo gudoomiye Cismaan iyo ku-xigeenada macal ciidankiina Jaziira joogana waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan dhageysanay oo si fiican noo daadegay cabashadiina ahayd runtii waxa in ka maqan inaad soo bandhigataan maxaa yeelay waxaad tihiin bulsho codkar ah dareenkeedana muuji kara waxay rabaanna ka hadli kara waxaa dhooban dad badan oo maanta aan dareenkoodana ka hadli karin waxay rabaanna aan sheegi karin cabsi iyo walwalna ku nool haddaan ila kaftamo haddaad arki jirteen maamul asagoo socda inta warqada in ku tuura in ka taga annaga maanta magacaabis ma wadno waxaan ku kalsoonaa kuwa loo jeedo haddaad arki jirteen maamul inta wax bedela iska taga annagu wax ma bedelayne maanta waxaan rabnaa kuwii hore u jooga inaan la shaqayno maamulkan sida aad ogtihiin waa cusub yahay wuxuu joogaa wax 3 bilood ka yar waxaan rabaa in la isdhegeysto wuxuu jiraa wax 3 bilood ka yar in muddo inaan meeshaan waqtigan ka soo hormarno waan rabnay laakiin waxaan rabnay gudoomiyaha gobolka inuu yimaado maadaama uu booqasho badan ku jiro degmooyinka iyo tuulooyinka waxaan islahayn asaga imaa doona laakiin howlo shaqo aawadeed ma aysan suurto gelin laakiin waxaan dhahnay ma maqnaa karnee waa inaan tagnaa maamulkaani wuxuu culayska saaray koow markii la magacaabay horta asxaabtii hore u joogtay iyo asxaabtii cusbeed intaba inaan midayno kana hor tagno waxa la yidhaha khilaaf iyo isjiijiid iyo iska hor imaad intaba waxaan horta ku dadaalnay inaan xallino inaysan imaanin wax khilaafaad qodobka kale oo aan isku dayno waxaa ka mid ahaa inaan bulshada gobolka Shabeellaha Hoose ku dhaqan dhageysano waxaad ogtihiin in gudoomiyaha gobolka oo maaragtay degmooyinka dhammaan oo cagta soo mariyay sida Marka Wallaweyn meesha la yiraahdo Afgooye goobo kale oo dhiman insha Allah taala waa tagi doonaa waxaana ka baraawe waxaana ka shaqeyn doonaa degmooyin isla socda sida aad hadda naga dareemaysaan inaan deegaanada oo ay u shisheeyso Beledul Amiin ilaa Jaziira inaan isula socono dhageysanana bulshada codkanaguna oo noqdo gobol iyo degmo iyo tuulo mid midaysan oo noqdo haddii aan u soo noqdo deegaanka Jaziira waxaan haysanaa nimco badan oo Ilaahay uu na siiyay waxna waa naga dhiman yihiin waxa dhimanna waa ku dadaalaynaa waxaan ba isleeyahay walow aan ugu muhiimsantiin dhagaxii iyo carradii aad haysatiin xoogiina waa haysatiin shamiitadii iyo jiingadii aan naga maqan insha Allah taala wixii dhismaha oo aad baahantiina maamulka gobolka iyo degmada waa kaasoo waxaa la yiri hal maalin magaalo laguma dhisi karo laakiin insha Allah taala waxa waaye socodkanaga iyo xusuusteena intaba qalbiganaga way ku weynaa doontaa waana soo laalaabo doonaa annagu halkaan iskama aanaan imaan dad iska socda ma nihin waxaan u maleynayaa habeen saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis aan la kulmay amarka meeshaan aan ku imid riboodka macnaha maaragtay inaan in ka qaadno imaano in dhageysano asagaa noo soo diray gudoomiyaha gobolka wax ka og
iskama socono dad iska socda ma nihin waxaana noqon doonaa insha allahu tacaala ma noqon doontiin kuwa laysku tuurtuuray waxaad noqon doontiin kuwa meel yeesha koonfur galbeedna ka tirsantihiin xaqiinana ayadaa ku leedihiin wayna inii dadaali doontaa naf iyo maalna waa ina kor dhigi doonaa haddii ilaahay ra waxaan rabaa inaan marka u soo laabto hadda shaqada waxaan ka bilaabaynaa deegaankan waa ognahay inuusan xafiiskii maamulku shaqeylaa uusan lahayn waa ognahay inuusan saldhiggii uusan lahayn waa dareemaynaa baahi badan inuu leeyahay insha allahu tacaala habeen dhowed ragaan la kulmay xataa waxaa la ii sheegay dhul macnaha deegaanadaas laga dhiso inay macnaha yaalaan hadday nagu yaraadaanna rag kalaa waxay noo ballan qaadeen oo aan kugu bishaaraynayo inay afar boosna siiyaan oo saldhiggina 4 boos siiyaan degmadana 4 boos siiyaan haddii kuwa hadda dhagaxu yaal ay ku filan tahana ayadaan ka shaqo bilaabi doona iska wax u qabsaan uga shaqo bilaabi doona waxaa marka nala ka rabaa qalbiga ha la furo niyadda ha la furo wiilashiiniya adinka in ka tirsan gobolka yaqaana xaaladihiisa ka warqaba ayaa inii jooga waxaana rajayn doonaa insha allahu tacaala inaadnaan noqon mahmaadii oo ninku mahmaaho oo ahayd gabar meel kale kaa guursataa ilmahaaga kama tirsan jaziira waxay ka tirsan tahay waana ujeediin insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa maamulka meesha inii joogana inuu inii qaadumay doono annagana aan ku gacan siino waxaan rabnaa mas'alo cusub inaan ku siyaasho dhegihiina maqla maamulka deegaanka oo ugu horeeya guddoomiye cismaan waxaa lagaa rabaa hadda ka bacdi oo maamulka gobolka inku amraa dawladda aan ka tirsanno dawladda koonfureed ay maaragtay nala og tahay hadda ka bacdi geed hoostiis ku shaqeeye ma dhici doonto adinka maamulkiina qof in kamida oo magaaladan ka maqan lama arki karo aniga haddeer kusimaha guddoomiyaha ah xafiis gobolaan ka soo tegay oo ku meel gaara waxaa hadda saacaddan dhex fadhiya guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda iyo xoghayihii gobolka dhex fadhiya xaalad lambar 50 ka jirto ogtihiin guddoomiye ku-xigeenkii siyaasaddaa jooga inaan inii shaqayno inii qaadumaynaana laka rabaa ama amiirta gobolka oo qaata inaad la qaadatiina laynka rabaa guddoomiyihii degmadana waa oo ini maqlaa asaga naftirkiisa degmadiisa maamulkiisa inta kale waa jiraan waxaa laynka rabaa xaruntan jimcaale bashiir adiga cabduqaadir waxaa laynka rabaa inaan la banayn iyo macal amnigiina oo aad joogtiin 3 hadday joogto 2 ha maqnaato 3 hadday maqan tahana 2 ha joogto waxaa la rabaa odayaashan iyo gabdhahan inaad dhibka la qaybsatiin cabashadoodana sidaa ugu tiri lahayn aan uga shaqayno waa mahadsantihiin adinka iyo asxaabtii xafladdan ka shaqeeyday soo dhaweyntiini si mida baada saxaafadda dhammaan waxaan leenahay kulaylka iyo dhibaatada iyo inta aad noo samarteen walaalihiin waa sugeydeen ahayn waa dareemi kartiin marxaladaha jira iyo meelaha aan ka imaanaynay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aada u mahad